inkastoo intooda badan ganacsatada magaalada Beledweyne ay la daaldhacayaan sidii goobahooda ganacsi biyaha ugu ilaalin lahaayeen ayaa haddana waxaa jira qayb ka mid ah ganacsatada oo ku dhex ganacsada biyaha kuwaas oo la qabsaday jawiga biyaha. Honkebel TV ayaa booqday suuqyada ganacsiga ku yaala bartamaha magaalada waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo aan kula kulmay gudaha suuqa. Dukaankaygana maasha Allah 6 bari waa furan yahay qof alaal qofkii rabo inuu wax u imaado ama ganacsigii oo u imaado waana agabka beeraha iyo wax walba weeye marka haduu Allah idmana waan si fureynaa oo dadka waxaan ku sii talinaynaa inay joogaan magaaladooda magaaladana waa joognaa oo kama tagin oo banaanka looma bixin ciyaalka waa joogaan anaga waa joognaa quraacda waa lagu keenaa qadada waa lagu keenaa cashada waa lagu keenaa marka haduu Ilaahay yiraaha idinkana sabra haduu Ilaahay yiraaha sabarka Ilaahay xaqiisa ku iimaanaya wallahi dukaamada kuwa ay biyaha galeen iyo kuwa ay biyaha galeen inta waa furan yihiin dadku waa dhex joogaan ninka seelbaankiisa hor fadhiyo wardiysanaya dad sareero saarta dad aysan ka galin aniga hadda 30 sent amal ka dhiman biyaha waana dhex joogo ku dhex ganacsanayna dadka ceel jaale iyo dad meelaha u qaxay waa jiraan dadkii shoobinada rabe dadkii caanooyinka ilmaha iyo cunooyinka rabe wax kasta waa noo imaanayaan oo soo dhex bixinayna oo lagu dhex shaqaysanahay. dhinaca kale marka laga soo tago dadkii ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle waxaa jira qoysas ku dhex nool guriyo iyo wadooyin ay biyo ku dhex jiraan ee gudaha magaalada Beledweyne waa kuwan qaar ka mid ah dadka go'doonka ku jira oo la hadlay Honkebel TV. hooyay shan qoysanna waa iska rafaasanna waa iska dhibaataysanna waa noo jeedin biyaan ku dhex jira agoon leeyaan ahay dhibaato adduunyo isna haysato waxaan hayna malaha rafaad waan nahaya biyo waa kana waa noo jeedin meesha wax la haysta male wax lagu adeegta male wax lagu shita male waa la iska rafaasan yahay waa la iska tuugsanaaba hooyo xafadan buulaxaabley ayaa ku go'doonsanahay inta qoys oo ku go'doonsan oo bixi waaye oo biyihii macnaha waxay ku tagaan baawar ku raacan waaye 100 qoys waaye biyaha dhex jifanaa biyaha dhex joognaa anoo wax la'aan hayso dadku wuxuu baxaan qarash ku baxaan biyihii meel ka maraan waayeen baawurtii macnaha socon weydi saasaan guriga iska go'doonsanaa marka masaajidkan jifanaa masaajid buulaxaabley ku yaalo ayaa wixii rag jiftaan wixii gabdhana waxay jiftaan geedaha korkooda. Cabdi Axmed Hussein Honkebel TV Beledweyne.